sidee loo isticmaalaa OCO OCO-ga waxaa laga soo gaabshay one cancel other waxaa loola jeedaa haddii mid lagu dhaco midka kale cancel. OCO-ga sida caadiga ah laba qaab ayuu u shaqeeyaa ama laba dhinac ayuu u shaqeeyaa. dhinaca koowaad waa in aad ku qaadatid TB-gaaga ama take profit-ka ama faa'iidada ku qaadatid, dhinaca kalena oo suuqa kaga saaro stop loss-ka ogolaatay. labada dhinac ayuu u shaqeeyaa. haddii marka stop loss-ka uu ku dhaco automatically suuqa waa ka baxaysa, haddii uu TB-ga ku dhacana waa ka baxaysa. marka sidaas ayaa loo yiri one cancel other. haddaba qaabkee loo isticmaalaa OCO-ga? OCO-ga sida caadiga ah waa inaad gadataa coin-ka, waa inaad gadataa. Solana ayaan soo galaynaa. Solana markaan soo galno waxaan leenahay buy ayaan leenahay. waxaan hayno dhan ayaan ku gadanaynaa. meeshaan wax ka dhiganaynaa market si aan suuqa hore u galno. limitka wuu daahinayaa. buy aan nidhi automatically waan galnay. waxaan helnay 0.12 Solana ayaan helnay. kadib sell-ka ayaa taabanaysaa. meesha marketka ku dhufo. kadib OCO ayaa sii dooranaysaa. saamka ku yiraahdo waa marka ugu horeyda oo qofku waxba maaragtay fahansanin waaye. kadib hoos u soo baxaysaa. okay, meeshaan iskaga soo baxaysaa. OCO-ga marka sidan buu maaragtay u soo baxayaa. qaybta marka u koreyda TB limit mar walba waxaa gashanaysaa meesha faa'iidada ku qaadanayso. anaga marka Solana waxaan rabnaa $150 inaan uga baxno. waxaan gashanaynaa $150 ayaan gashanaynaa. qaybtan hoose marka SL Tiger-ka aan fiirina. marka SL Tiger-ka laba qaab oo loo isticmaali karaa. haddii aad rabto inaad hal mar suuq ka baxdid qiimo isku mid ah gashanaysaa. tusaale waxaan leeyahay 147 haddii la keeno iga saar suuqan aan leeyahay. qaybtan kalena waxaan ku qoraa isla 147 ayaan ku qoraa. kadibna calaamadan dhammaystiraa. sidoo kale waxaan samayn karaa inaan iraahdo haddii 147.5 suuqa la keeno iga saar waa dhihi karaa. haddii 147 u yimaadana iga saar waa dhihi karaa. oo mar walba waa activation. mar walba SL Tiger-ka hore ayaa maaragtay activation ah. labadaba waa isticmaali karaa. marka hadda waxaan isticmaalaynaa tusaale ahaan hadda qaybtan aan isticmaalno. haddii 147 la keeno SL-kayga active garay. mararka qaar Binance wuxuu sameeyaa suuqa uu ka saaraa isagoo gaarin kan labaad. marka kan ayaan leenahay sell order ayaan leenahay. sell order ka dhaanay uu nagu xiran yahay waa kaasa. labada qaab waa nagu xiran yahay. haddii aan dhahno kan ka furno kale, kan haddaan ka furno oo ku laabano waxaan dhihi karnaa 150 kan uga dhig. kan waxaan leenahay 147 labadaba waa dhihi kartaa. kadib calaamada buuxi sell order oo kugu qabanaa marka walba. labada qaab waa loo isticmaalaa. haddii aad rabto hal mar suuqa laga saaro qiimo isku mid ah gasho. haddii aad rabto in suuqa laga kala saaro qiimo kala sarreeya gasho. mar walbana meel oo suuqa maaragtay ka laaban karo ama maaragtay hore wax isku dhow ha gashan.